ninka siyaasiga ah qabiilka wuxuu isticmaalaa oo kaliya jaranjaro uu guriga ku fuulo markuu darbiga saaro oo jaranjartii uu ku fuulo meesha koro uu koro hadduu rabo jaranjartii laadu ku kiciyaa dhulku ku soo ridaaya ilaan kor uu ku fuulay moogtahay dib dambe looma arkaayo kor suu ugu maqan yahay kuwii kor isla fuulay marmar inta isku dhacaan korkii laga soo tuura dhulku imaana jaranjartii oo dhowr sano ka hor uu dhulka ku riday yuu soo qaadanaa meeshuu raba inuu saaro marka haddana oo yidhaahdo reerkeenni si xun loo galay waxba looma gelin adaa laguu galay maxaa jira markaad kor ku maqnayd adi le dhuuqaay adi ma waxna siisay annaga kistii markaa weysay aana dhahay miyaa kaale jaranjar haddana ii noqda marka dadku way diideen inay jaranjar noqdaan waa tii markasta aan ku celin jirnay oo dadku intay wax fahmeen waan soo jeedaa indhaha faraha gelin intii soo maaha dadku way soo wada jeedaan marka cid indhaha faraha laga gelin karo ma jirto waxay ku roon tahay marka walaaltinimo waan isfahamsan yahay waxba la iskama qaadayo meeshaane in walaaltinimo la raadiyo hadalba hadalku ka macaan yahay la isdhaho aan maxay ahayd la iscaayin aan is aflagaadeynin caayida iyo aflagaadadu waxbay sii xumaysaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri wax sadaqaysta hadaydan waxba heli karin xataa fa bi kalimatin tayyiba war wanaagsan isdhaha ilaahina wuxuu yiri waqulu lin-naasi husnan dadka war wanaagsan dhaha waqul li ibadi yaqulu allati hiya ahsanu inna ash-shaytana yanzaghu baynahum adoomahay waxaad ku tiraahdaa hadal wanaagsan is yiraahdeen marka cid walba oo hadal wanaagsan iyo ummadda isu soo dhaweynteeda ka sheekaynaysa dadkaas la taageero waliya waa mahadsan tahay ummadda isu soo dhaweynteeda ayaan taageersanahay qof kasta oo ka urkacsanaya dantiisa gaarka si ugu gaaro inuu dadka ku kicsado in la yiraahdo walaalow raalli ahaw meeshaas shalay ayaan ku ngownay oo aan aragnay qabiil u roonaadayna ma jiro cid wax u tartayna ma jirto dhalinyarada waxa laga faa'iideystaa intay caafimaad ka qabaan markay dhaawacmaanna aabahood iyo hooyadood ay ka dhaawacmaan oo ayaga ayaa daaweysta haday dhintaanna aabahood iyo hooyadood ay ka dhintaane qofka dagaalka gali kama dhintaan qofkii dhintayna sariirtiisa ayaa laga taba oo ka maqan yahay marka ayaan wax been la isu sheegin dadkaan waxay u baahan yihiin in dadka la dejiyo in walaalo la ahaado meel loo kala socdo male lama kala guuraayo dhulkaan ilaahay nagu abuuray lama kala jiidan karo marka intaan colaad iyo iscaay iyo rafaad oo dhib aan ku joogi lahayn inagoo walaalo inaan ku joogno ayay roon tahay laakiin aqliyada dadkeena waxa in badan ku bees garaysmay wixii ay soo arki jireen oo ahayd raganimada waxa loo yaqaanaa wax iska celi markaas meel wax la iska celiyo meel aan ahayn ayay wax iska celinayaan in wadankii la dhiso oo horay loo socdo hadii la diido wax iska celin ma taas kii diiday in wadankii la isla wado oo la isla lahaado oo ummaddu ay wada socoto kii diidani raganimo ma taas ayada raganimadu waxay tahay in wadanka wixii dantiisa ku jirto hatta hadii ay keenayso mid gaarka adiga ku ah inayna markaas dan ugu jirin laakiin danta guud ay dan ugu jirto waxa raba danta guud daraadeed inaad mid yar u liqdo laakiin hadda aan isdaba marsiinay waxaan leenahay bal inta aan danta guud iyo Soomaalinimo la gaarin anaga maamulkeena qabiilkeena xaafadeena maxaan ka helaynaa koow laba saddex markaan fiirino ummadda guud ahaan waxbay ka heli waxaas ay ka heleen waxba inaga soo gaari laakiin wax ay imano inaga inoo gaar ahood toos inoogu imaanaya meesha kama muuqdo saas daraadeed aan qaadacno wax dan on kaleena ma jirto qofkii sidaas sameeya asaa ku ceeboobi doona maxay hadda bulshada Soomaaliyeed waxay u badan tahay dhalinyaro boqolkiiba 70 waa dhalinyaro marka dhalinyarada waxa la yiraahdaa odayaal waqtigoodii soo qaatay waqtigiina ayna qaadanin oday sii socdo waqtigiisa dhamaystay yaa hadda wuxuu rabaa hadana siyaasad kale inuu dhalinyaradii iyo dadku yiraahdaaye ani soo raaco saay adeer waqtiga waad soo qaadatay wadankeena inaan dajino oo caadi uu noo noqdaan rabnaaye hadaad wax maslaxa oo ummadda u haysa aad haysana keen hadii wax qalooca ummadda si kala fogeyn aad wadidna naga raali ahaw in la dhaal rabaa marka ummadda xilliga ay gaari lahayd qofka gardana naga raali ahaw inay dhahdo ayaa soo dhow nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam idha habat ummati an taqula lidh-dhalimi ya dhalim haday ummaddeedu ka cabsato qofka gardana inay tahay waad gardarantay naga joog فباطن الأرض خير لها من ظاهرها دولك هوستيسا أو دمشقه أيا هو خير بدن دولك كركيس بمعنى أن دول كنا ولاته وحكفي عن سعزية شرف أن تكون دمته دولك هوستيسين هتقش مركا أمد الإسلام كأمد دول أقلاته معه وحقا ولا يرى على ذين كرا أنت يسقسوا آذيسوا لكن مالك الدنبه وحيون ما دون تين دهان ميلي إنه وحاس هذا يمردك سوى جيسان وميلي إنه دهان عدو حكا قاضي سمجوت إذا الشعب يوما أراد الحياة شعبي وهدوم مالك أنصد إنه النول هذا noloshuna ma aha yaani nafa ay ugu jirta ma aha nolosha lagu sheegayo waa nolosha xurriyada qofku waa inuu xor ahaado
haddii laakiin la adoonsanayo oo cunto la siinaayo oo cabitaan la siinaayo oo leeyahay maxaa ka maqan adiga waad cunaysaa waad cabaysaa waa kan oo masiirkiisa oo santala ku lahayn oo xurriyadda suurab uu ahli kareen oo dad uu ka cabsanayo taasi nolol ma aha marka noloshu waxay tahay waa nolosha runta ah ida shacbu yawman arada al haya fala budda an yastajiba